halkaan u joognaa degmada Waaberi gaar ahaan waaxda hanti wadaag olol nadaafadeed oo iska kaashanayaan maamulka degmada Waaberi agaasinka nadaafadda iyo bilic soo celinta agaasimaha gaadiidka dawladda hoose iyo shirkadda IFI maad ka gaarto intaas ayaa iska kaashanayo hawshaana waxay noogu bilaabatay si oo fiican waxa waaye waaxda hanti wadaag iyo waaxda horseed iyo waaxda maaja ayaan rabnaa inaan caaw ka shaqeyno haddii aan leedno agaasinka nadaafadda iyo waxaan u mahad celinaynaa iyo agaasimaha gaadiidka dawladda hoose oo runtii mar walba ka degmo ahaan nadaafadda iyo bilic soo celinta garab naga siiyo oo nala garab taagan waa u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iideysanayo dhowr fariimood inaan halkan ka diro midda koowaad waxaan u dirayaa ganacsatada oo dhaca hareeraha waddada Makal Mukarrama waxa waa ganacsatada waxaan u baaqayaa inay ka qayb qaataan nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaa arkaysaa qof muwaadin oo maxalay oo ganacsada ah oo intaas oo hanti oo meeshan maalgashaday haddana hortiisa aan ka shaqeynayn nadaafadda mas'uuliyadda iska saarayna arkaysaa sidaa darteed anaga haddana maamulka degmada Waaberi mar dhow hadduu alla insha Allah ganacsadaas waxaan rabnaa inaan la xisaabtano sharcigana aan la tiigsan haddii ka shaqeey waayaan nadaafadda iyo bilicda degmada haddii ka shaqeey waayaan waxa waayo waa sharcigan la tiigsan doonaa hadduu alla insha Allah ka guud ahaan shacabka ku nool degmada Waaberi waxaan u baaqayaa mar walba inay maamulkooda garab istaagaan ay kala shaqeeyaan nadaafadda iyo bilic soo celinta aadan u mahadsan